أرضيا قلت واسدي إليس واسدا رورتيو أكتوى بركي. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فصلك لبي طبنات مادة كيمستري جبتركيسا كواد ayaan ku jirnay maxaan kaga hadli jirnay hydrocarbons. Hydrocarbon maxaa la yiraahdaa waa ka soo sheekeyna waxaan dhahnay isku dhis walba ee ka samaysan carbon iyo hydrogen ayaa la yiraahdaa hydrocarbons. fasalkii hore waxaan ku soo qaaday casharkii ugu dambeeyay shayga organic matter-ka in base uu yahay carbon samayn. Okay marka hadda waxaan ku jirnaa marka jabtarkeena koowaad oo wali aan kaga hadlayno wax la yiraahdo hydrocarbonska iyo derivatives-kooda waxyaabaha ayaga la halmaala oo looga hadlayo. maanta waxaan dareensiin doonaa waxa la yiraahdo alkyl group kuma soo sheegin ablaynta oo classification waxaan ka soo qaadnay aliphatic aromatic aan ka soo hadalnay waxaan ka soo hadalnay saturate aan ka soo hadalnay waxyaabo kala duwan aan soo sheekeynay laakiin wali kama hadlin alkyl group kuma soo sheegin. alkyl group kan shay cusub ay yimin miya maya wuxuu ka hoos baxay iyo waxa uu yahay waxa sheegi doonaa gabagabada cashirka marka arday walba ee ka tirsan fasalka waa inuu yaqaan wax la yiraahdo alkyl group iyo halka ay ka yimaadeen. Okay alkyl group maxaa la yiraahdaa marka sida meesha ka muuqata alkyl groupka waa organic chemistry waxa alkyl groupku intee ka yimaadeen alkane ay ka yimaadeen. alkane-ka ma la egyihiin marka maya waxaa ku qoran one hydrogen less hal hydrogen ay ka yar yihiin alkane-ka. markasta waxaan dhihi jirnay alkane-ka kaarboonka tirada uu yahay hydrogen muxuu noqonaa kaarboonka tiradiisa oo laba lagu dhuftay oo lagu daray laba sameeyn muxuu ka yaryahay la yidhaha hal meesha labada ahayd maxay noqonaysaa marka hal lagu daraydi labadii ayaa waxaan ka dhigaynaa oo keliya lagu daray hal. sawirkan ayaa kuu fududaynaya inta waxaa ku qoran kaarboon sita afar gacan ee hydrogen afarta gacan ee hydrogen hal hydrogen ayaa wuxuu ku lumay meesha saa aragtaan wuxuu kaarboonka noqday marka kaarboon sita saddex hydrogen gacan kaama wuxuu ku qabsan doonaa shay kale marka wuxuu ku qabsan doonaa isku dhis kale. isku dhiska wuxuu noqon karaa organic matter shay ah waxa uu kale noqon karaa inorganic matter shay ayuu qabsan doonaa. marka ileen alkaniska ayagu uma fududa inay falgal sameeyaan haddana waxaa la rabaa inay falgal sameeyaan marka alkyl group wuxuu fududeeyaa in falgalo oo side chains ay yimaadaan. marka waxaan ku daraasaynaa marka qaar ka mid ah alkyls aan kaga hadlaynaa jadwal soo socda ee inta noogu qoran. okay jadwalkan fiiri maxaa looga hadlayaa marka jadwalkan waxaa looga hadlayaa qaar ka mid ah alkyl groupka. alkane waxaan soo sheegnay in methane ethane propane butane alkaniska ayagu maxay ku dhamaadaan n samayn alkyl muxuu ku dhamaan doonaa ayl mar walba propane ka soo kamayn propyl methane samayn methyl ethane samayn ethyl. sawirka fiiri kaarboonkan waa saddex buuga ku yaala buuga fiiri kaarboonkan wuxuu wataa saddex hydrogen wataa kii hore wuxuu watay afar watay markuu afar wato waxaan dhihi jirnay methane ane ayaa u dambeysay kan laakiin waxaan dhihi doonaa methyl maxaa u dabamaraynaa yl maxaa la bedelay suffix gadaalgalkaan bedelna soo maa gadaalgalka waxaa lagu bedelayaa kolba meesha la joogo. hadda waxaan joognaa marka methyl ethyl propyl butyl qaabkaasaa loo tirinaa. marmarka uu noqdo isopropyl isobutane marna wuxuu noqdaa seco oo secondary ah marna tetra marna wuxuu noqdaa tertiary butyl tertiary just buu saddex waaye
second waa marka laba yahay waaye general formula ilaa wax walba ay socdaa rules ayay ku jiraan formula ma jirtaa loo isticmaalo alkyl groupka alkyl groupka formula weyn ay leeyihiin formula waxa waaye kaarboonka tirada uu yahay ereyga n tirada kaarboonka taaganta oo lagu dhuftay hydrogen lagu dhuftay labo hydrogen r9 tirasina soo ma kaarboonka tirada uu noqdo ayaa ku dhufanay labo kadib waxaad ku dari doontaa hal wixii kuu soo baxaa ayaa waxaan dhihi doonaa tirada n ayaa u taagan marka hydrogen waxaan leenahay wuxuu leeyahay n oo lagu dhuftay labo oo lagu daray hal waxaa la yidhi the number of carbon and hydrogen atom tirada kaarboonka iyo hydrogenada ay leeyihiin ee alkyl groupka is determined by waxaa go'aamin doono this formula xeerkan muxuu yahay marka xeerka waxaa waaye hydrogen ayaa wuxuu leeyahay laba lagu dhuftay n waa number of carbon oo lagu dara hal marka tusaale aan samayno tusaalaha kood muxuu noqon karaa tusaalaha kood waxaa la yidhi find the number of hydrogen atom of alkyl group with 2 carbon atoms waxaad raadisaa tirada hydrogenka yaa kaa maqan hydrogena maqan waa inaad taqaanaa wax kaa maqan horta kow hydrogenka meeqa carbon ah lagu siiyey sambal alkyl group waayo kow oo alkane ma alkane maaha sambalka lagu siiyey waayo laba carbon ayaad haysataa okay qaacido ma jirto qaacidada anagu isticmaalayna waa inaan soo saarno marka tirada dhabta ah ee hydrogenka uu leeyahay tirada dhabta ah ee hydrogenka uu leeyahay waa inaan soo saari karnaa marka tirada hydrogenka uu leeyahay maxay tahay marka solution no fiiri given maxaa lagu siiyey n waxaa lagu siiyey inay tahay labo yaa raadinaya marka hydrogen ayaa raadinaysaa n waa lagu siiyey n meeqaa lagu siiyey inay laba tahay hydrogen waxaan leenahay marka wuxuu la eg yahay laba lagu dhuftay n laba lagu dhuftay n yaa marka waa number of carbon oo lagu dara hal waa qaacidada caadiga sama labada waaba haysanaa waan caadiga n meeqaana la siiyey n waxaana la siiyey labo bracketka laba noo geli marka laba ku dhufo afar lagu dara hal bracketkan ka soo bixinay inta afar noogu qoran marka waxaa noogu qoran afar lagu dara hal meeqo marka shan hydrogen marka oo micnaheedu uu yahay haddii kaarboonka uu yahay labo hydrogenkana waa 5 waxaa la dhihi doonaa kaas kaarboonka labada waxaa la yiraahdaa ethane ethyl ayaa leeyahay marka ethyl ayaa leeyahay waxaa loo doomarin doonaa xarafka yl meesha kioro ka ahayd kioro meequu ahaa kioro ayuu ahaa kana ayl ayuu noqonaa marka waxaan filayaa in aad fahmaysaan cashirkeena maanta example-ka xiga kior maxaa raadinayna hydrogen soo maa tan waxaa raadinayna carbon waxaa la yidhi find the number of carbon atom tirada kaarboonka raadi goob oo keen maxaa la keenayaa kaarboonka la keenayaa kaarboonka meeqa hydrogen uu wataa 7 hydrogen uu wataa okay summarize ta marka qaacidada maxay ahayd marka CnH2n plus 1 okay haddii marka hydrogen aan ku heli jirnay fiiriya hydrogen haddii aan ku heli jirnay laba lagu dhuftay tirada kaarboonka lagu dara hal asna uu maqay maxaa sameeynaa way fududahay hydrogen waxaa lagu helaa aan leenahay tirada hydrogenka number of hydrogen oo laga jaray hal markii laga jaray hal tirada soo hartay waxaa loo qaybin doonaa haddana waxaa loo qaybin doonaa labo hydrogen tirada uu wato noo sheeg marka aan gifinkeen xalina marka maxaa lagu siiyey hydrogen meeqaa haysataa 7 maxaa kaa maqan n yaa maqan n ayaa naga maqan qaacidada guud maxay ahayd marka hydrogen wuxuu la ekaa 2n oo lagu dara hal ayaa waxay la ekeyd hydrogen maadaama hydrogen uu naga maqan yahay macna hydrogen haysano yaa naga maqan carbon sama 2n oo lagu dara hal waxay la mid tahay 7 hydrogen waa haysanaa 7 na la siiyey
n ayaa maqan marka hal ayaan ku dari jirnay soo ma sida normalka ah haddii equal ay soo hormarto charge wuxuu noqon doonaa minus soo ma okay kan ka jar wuxuu noqon doonaa 6 marka aan rabno inaan bixino waxaan noqonaa leeyahay 2 u qaybi kana 2 u qaybi automatic waxaan maan doon n waxay noqon doontaa 3 ama si kale aan u dhahno sida horena aan u dhahno hydrogenka waxaan ka jiri doonaa hal kadib tirada soo harta waxaan u qaybin doonaa 2 waxay doontaa ahaato hydrogen hal aan ka jarnay 6 ayaa noo soo hartay 6 ayaan 2 u qaybinay waxaa noo soo haray 3 waxaan leenahay marka kaarboonka waa 3 hydrogenkana waa 7 maxaa la yiraahdaa borobyl ayaa la yiraahdaa markaasna marka waxaan leeyahay in aad fahmaysaan cashirka qaabkan ayuu buuga u yaalaa waaya alkyl group are named by using a prefix which indicate the number of carbon atom and suffix "-yl", which signifies that the group is alkyl group. marka la rabo in la magacaabo sheyga ee la yiraahdo hebelkan wuxuu ka tirsan yahay qolyaha waxaa qasaba in sheyga la ogaado wax uu yahay horta marka aan ka hadlayno organic chemistry-ga marka sida badan prefix-ga way ka sameeyeen prop but hex just way ka sameeyeen meth sida aad aragtaan eth sida aragtaan prop sida aragtaan way ka sameeyeen but ben prefix-ga waa laga sameeyay magac horgalaha kana magac bilow waxay ku bilaabanayaan horgalka waa laga sameeyay laakiin marka la joogo alkyl group suffix gadaalgalka waa in uu ahaada ereyga "-yl", wax walba ku jira meesha haddii alkyl laga dhigayo waa in "-yl" loo bedela alkene ahaayeen "-yl" loo bedela alkene ahaayeen "-yl" loo bedela marka waaya tusaalahan fiiri CH3 CH4 ay ahayd samayn ayn ayaan dhihi jirin methane 3 ayaan ka dhigaynaa waxay noqonaysaa methyl kana ku xiga waay kaarboonka 2 ah hydrogenka 5 ah maxaa la yiraahdaa ethyl haddii kaarboonka 2 yahay haddii kaarboonka 3 uu noqdo meeqaan leenahay prop 3 ma ahayn prop ayl ku dar borobyl marka sidaa baa loo sheegayaa methyl ethyl probyl butyl bentyl ayaa loo aqrinayaa marka horgalaha waa kana 10ka ugu horeeya meth 1 waaye eth 2 prop 3 but 4 bent 5 hex 6 hept 7 oct 8 non 9 dec 10 markasta waxaa ku diri doontaa marka sheyga la rabo in la magacaabo wax uu yahay haddii alkyl hadda ku jirna alkyl aan leenahay methyl ethyl probyl butyl bentyl hexyl heptyl octyl nonyl iyo decyl all waxaan raacin doonaa marka labada xaraf ee u dambeysay y-da iyo l-ka ah. The first 4 prefixes have historical origin, while the other prefixes derived from Greek. Afarta ugu horeysa sida badan ayagu waa waxyaabo magacyo wixii wataan oo taariikhi ah, laakiin kuwa dambe waa ereyo laga keenay Giriiga. Magacyada dambe waxay ka yimaadeen luqadda Giriiga oo laga soo dhiraandhiriyay, laakiin inta hore waxa leeyahay waa qoli jaango'aysan oo taariikhi ah oo hore loo isticmaali jiray marka waaya weydiimo marka inta aan su'aalaha ma gelin in arday walba ay ka tirsan ardada waxaa la rabaa in uu kala yaqaano alkyl alkene waxay kala duwan yihiin sida badan waa shayb ahaan isu dhow yihiin alkyl groupka marka waxaan rabaa in gaar loo fiiriyo oo daraasadeedan la badiyo okay exercise define alkyl group qeex alkyl group maxay yihiin tan xigta name of the following of alkyl group ka soo socda sheeg
haddii kaarboonku 5 uu yahay hydrogenkana uu yahay kaarboonku 2 yahay hydrogen 5 uu yahay see la leeyahay magac sheeg kaarboon 3 hydrogen 7 magaciisa sheeg kaarboon 4 hydrogenkiisa 9 magaciisa sheeg kaarboon 5 hydrogenkiisu yahay 11 magaciisa sheeg oo waxa la rabaa in arday walba uu yaqaano hydrogen kaarboonada iswata magacooda marka ardayay cashirkeeni maanta kaasoo aan kaga hadlaynay alkyl group halka ayuu ku egyahay ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee